booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay ku soo badanayaan degmada Karan kuwaas oo falal ka baxsan nabadgelyada ka fulinaya degmadaasi. dhinaca kale duqa Muqdisho ayaa digniin u diray shacabka ku nool degmadaas. warkaan Cabdiqaadir Maxamed ayaa inoo haya. degmada Karan ee gobolka Banaadir ayaa waxa lagu qabtay kulan degdeg ah oo looga hadlayay dhanka amniga kadib markii dadka shacabka ay cabasho u gudbiyeen maamulka gobolka Banaadir halkaas oo markaasi maalmihii la soo dhaafay ay ku soo bateen falal la xiriira dhanka amniga. waxaana taliyaha qaybta bari ee booliiska Soomaaliyeed uu sheegay in markaasi maalmihii la soo dhaafay amni darro baahsan ay ka jirtay degmada Karan ee gobolka Banaadir. taliyaha booliiska qaybta bari Khaliif Cabdulla Maalin waxa uu sheegay in amni darrada degmada Karan ka jirta xilligan ay gaartay heer in jawaan la isku geliyo kadibna bac lagu dhalaaliyo dadka shacabka taasna ay ka dambeeyeen sida uu sheegay maleeshiyaad hubeysan kuwaas oo uu sheegay inay yihiin macawusley rag wata tuutaha dawladda oo ka dhiman oo kob iyo shaar iyo jaakad kaliya wata hoosna macawis ka wata qaar gabigooda macawis wata iyo shaar wata iyo boosh wata kuwa waxaan nahay macawisley oo gobolada aan ka nimaadnaa markaad qabato dad badan oo noocaas ah deegaanka soo buuxshay kama naqaan waxa codsanaynaa dadka saraakiisha la shaqeeyana inay guryahooda ay joogaan oo ku ekaadaan dadka maamulka la shaqeeyana inay guryahooda ku ekaadaan si annaga iyo tuugada dadka tuugada ah oo maartay aan ciidanka ahayn aan isugu soo baxno oo aan u wajahno dadka shacabkana uga qabanno. waa ogtihiin walaalayaal haddii dadkii guryihii lagu galaayo kiiska u dambeeyo aan hayno waxaa ka mid ah dad shacab oo inta la wato oo la afduubay oo lugaha laga xiray bac lagu shiilay waa haynaa taleefanadeenay ku jiraan kiiskii aan haynaa qofka u dambeeyo loo banaanbaxaya dadka loo banaanbaxaya noocaas ku dhaqmaayo oo midna hadda maxkamadda la geeyey midna uu tegey waxaan dadkuna ma oga wax uu samaynayo qofkan dhintay oo la dilay oo hay'adaha dawladda raayaan ma oga wax uu samaynayo. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in Karan ay tahay degmad baaxad weyn hayeeshee ay jiraan shakhsiyaadana gaar ah leh ee liddi ku ah amniga degmada Karan. waxa uuna ugu baaqay dadka ku nool degmadaasi Karan inay qayb weyn ka qaataan sugidda amniga degmadaasi. generaalada ciidamada joogo meesha ka hadlo aad maqlayseen maxaa la yiraahdaa qofka shacabka dhexdiisa tuutaha iyo qoriga ku sitaaho ciidamada kama socday dheen duqowda halkan ka hadashay oo bulshada ka duqoona hal qof oo xumaan taageera kuma jiro. marka bulshada sidaasaysan raad ugu lahayn qaybaheeda kala duwan yacni dadka dhibaatada sameynaa. marka dadka dhibaatada sameynaya waa inaad qalbigaaga ku tirtaa inuusan hebel ahayn reer hebelna ahayn waa tuug iyo burcad. marka haddaad ehelsan lahayd oo aad u taqaano inuu ehelkaaga yahay min fadlag ehelkaagi maaha. hadduu ehelkaaga yahay waanay xumaanta ka celi. waa fahamtay xumaanta ka celi. haddii aadan xumaanta ka celinayn oo isagu xumaanta sii wado oo weliba aad kula safan tahay taas macnaheedu waxa waaye adiga iyo isaguba waa xuntihiin. kulanka degdega ah ee looga hadlayay dhanka amniga ee ka dhacay degmada Karan ayaa waxa uu daba socday kadib markii dadka shacabka ah ay markaasi cabasho u gudbiyeen maamulka gobolka Banaadir kadib markii sida ay sheegeen qaarkood ay qaati ka taagnaayeen rag ku labisan dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya oo kuwaas oo falal isugu jira dhac iyo dil ka geysanaya gudaha degmada Karan ee gobolka Banaadir. dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa war ka soo saaray duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday aagga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Axmed Tifo Xasan ayaa faafahinaya. dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa duqeyn dhanka cirka ah waxa ay ka geysteen meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay hal ruux oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay mid kale. waxa ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya in duqeyntaas lagu burburiyay xero ciidanka Al-Shabaab ay ku lahaayeen goobta duqeynta ay ka dhacday. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Mareykanka waxaa ka go'an
in ay sii wadaan dagaalka daacishta Soomaaliya iyo al-shabaab si loo baajiyo dhimashada dadka rayidka ah ee ku dhaawacmaya ama ku dhimanaya qaraxyada iyo dagaalada ay ka geystaan qaybo kamid ah Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka laga soo tago warkan kasoo yeeray dowladda Soomaaliya ayaa warar kale la helay waxay sheegayaan in duqeyntaas ka dhacday degmada Jilib ee Jubbada Dhexe aag u dhow lagu dilay 2 caruur ah sidoo kalena lagu burburiyay guryo ay deganaayeen dad rayid ah. dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhanka cirka ah oo Mareykanka ay ka fuliyeen degmada Jilib ee Jubbada Dhexe ee Soomaaliya. qoraalka Africom waxaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadood Soomaaliya ay maalin waa 29 bishii 7 ee July 2020 oo shalay ku beegneed duqeyn dhanka cirka ay ka fuliyeen meel ku dhow Jilib isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. wararkaas Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen xubin ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena mid kale ay ku dhaawaceen. isla markaana weerarkaas duqeynta ah uu yahay mid ay ku taageerayeen ciidamada dowladda Soomaaliya sida uu sheegay madaxa arrimaha bulshada ee Mareykanka ee Africom Chris Forrest Carris. sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaas ay qiimeyn ay sameeyeen lagu ogaaday inaysan wax ku noqon dad rayid ah. hayrshe al-shabaab war ay soo saareen waxaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu dilay 3 caruur ah sidoo kalena lagu burburiyay guryo ay deganaayeen dad rayid ah. Mareykanka sanadkan 2020 waxa uu kordhiyay weerarada dhanka cirka ah uu ka fuliyay Soomaaliya qaybo kamid ah si gaar ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaana ka soo baxay Africom warka lagu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya oo ay kula dagaalamayaan daacishta Soomaaliya iyo al-shabaab. hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa shalay sheegtay in magdhow ay u raadinayso dadka ay waxyeelada ka soo gaartay duqeynta mararka qaar sida in la'aanta ay u fuliyaan ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. xujayada sanadkan ayaa waxaa la sheegaya in tiradooda lagu soo koobay ilaa 10,000 oo qof kuwaas oo ku sugnaa wadanka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Maka. waxaana malaayiinta dadka ah ee ka kala imaan jiray dalalka dunida ay sanadkan u baaqdeen saameynta ka dhalatay xanuunka COVID-19. tirada kooban ee xujayada ah ee gudanaysa waajibaadka acmaasha xajka ayaa maanta u taagan mid kamid ah tiirarka ugu weyn ee gudashada acmaasha xajka. haddaba ustaad Cabduuli Yaxya Cali ayaanu weydiinay acmaasha xajka ee ay maanta u taagan yihiin xujayda sanadkan iyo muslimiinta kale ee aan nasiibka u helin inay xajiyaan wax laga doonayo. maantay waa maalinka 9aad ee bisha Dilxija waana yawmu Carafa waana maalinka xujayda isugu imaanayaan banka qiyaama. waxaana lagu tiriyaa istaaga banka Carafa inay tahay rugniga ugu weyn uguna muhiimsan arkaanta xajka. waana tan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay al-hajj Carafa. xajku waa Carafo. marka insha Allah ta'ala dadka xujayda maantay waqtigoodii ugu badan waxa ay gelin doonaan inay duceystaan oo halkaas talbiyadii ay ku qaadaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay duco mid ugu khayrka badan khayru duca mideedii ugu khayrka badan waa ducada maalinka Carafa. marka xujayda waata waajibaadka ay gudanayaan ilaa iyo qoraxdu ay ka dhacdo ayna meeshaas ay baaqi ku ahaan doonaan iyagoo marka insha Allah ta'ala dadka xujayda aan ahayn laga rabo maantay inay soomaan. dadka aan xujayda ahayn waa ay soomayaan sidaas lamida waqtigooda ugu badan xuska alle quraan aqrin iyo inta badan waliba ducada ay aad u wanaagsan in marka maantay waqti la geliyo. waana taa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay dadka aan xujayda ahayn maanta oo kale soomaayo dambi dhaaf 2 sanadood ah. waa sanadkan tagay iyo sanadka ka gadaaleeyo oo ajar ah in laga helayo insha Allah ta'ala khayrka maantay.
ustaad cabduuli yaxya cali oo sharaxaad naga siinayay mid ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee acmaasha xajka oo ay maanta gudanayaan xujayda sanadkan oo ay aada u kooban tahay tiradooda iyo waajibaadka kale ama waxa kale ee ay sameynayaan muslimiinta aan xajka ka qeyb ahayn. markaan mashquulkii ugu badnaa waxa uu ka jiraa filla Soomaaliya, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu sameynayaa la tashadii ugu dambeysay oo heerar kala duwan leh, taas uu ku doonayo inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha xiga xasan cali kheyre oo dhowaan shaqada isaga tegay. maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maalmihii u dambeeyey la kulmayay la taliyaashiisa arrimaha siyaasadda qeybaha kala duwan ee bulshada dhinacyada saameynta ku leh iyo ra-iisul wasaaraha dhinaca uu ka imaanayo siyaasiyiintooda, iyada oo ay isa soo tarayaan tirada dadka aadka loo hadalhayo in uu kusoo baxo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa aada u gedgedinaya talooyinka dadka uga imaanaya si uu uga dhex helo qof uu u arko in xilligan adag dalka uu ka samata bixiyo marxalada kala guurka ah ee la taagan yahay, isla markaana dhinaca kale uu rumeeyo riyada la hadalhayo ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo, iyada oo ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada saameynta ku leh siyaasadda dalka oo ay ka mid tahay beesha caalamka oo lafteedu ku baaqayso in doorashada aanu waqtigeeda dhaafin, sidoo kalena ay noqoto doorasho wadar ogal ah oo ay raali ka wada yihiin dhinacyada siyaasadda, maamul goboleedyada, xisbiyada iyo golaha baarlamaanka iyo xukuumadda, iyada oo dhinaca kale ay jiraan dadaallo ay beesha caalamka ku bixinayso doorka ay ka qaadanayso ra-iisul wasaaraha imaan kara. dr xasan sheekh cali ayaanu weydiinay marxaladan kala guurka ah qofka loo arki karo in uu xaaladan ka saaro Soomaaliya ee mudan in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha sifaha laga doonayo. dabcan haddii ra-iisul wasaaraha fiican horta lama arkayo, sababta way tahay waxaa la rabaa ra-iisul wasaaraha fiican qofkii soo dooran in marka hore la helo maahano. marka hore qofkii soo dooranayo ra-iisul wasaare fiican in la helaa loo baahanya. marka qofkiina ma hayno, marka waxaan sugaynaa mid adigu iska uun macmalaho iska uun wax weyn aan soo kordhino, dhibaatada inay sii kororto maa leanno asal ahaan meeshaba lama ogola dad wax yaqaan ama kartile ama wax qaba kara lama rabe. yaa aniga ila shaqaynaya, yaa aniga ii guurudaynaya, yaa aniga ila sacbinaya, yaan iga hor imaanayn, yaa wixayga ii fulihaayo, wax saasa le camalaa la raadaasaan qiyaasayo. nuugi hadda lama dhahayo yaa kartile, yaa waxaa fahmi kara, yaa fikir abuuri kara, yaa shaqadan qaba kara, yaa yeeli kara, dhibaatada yaa ka saari kara in la dhahayo hadda mataqaanaa uma malaynayo. waxay isaga badan taha wax uun adigu u eg yaa aniga idhegeysanaya, yaa aniga talada iga dhegeysanaayo, wax saas oo iska masaakiina camal waaye. hadda uma malaynayo hadda wax oo khayro dhaama in la keenaayo. khayra naftigiisu wax hadda faa'iido loo qabaayo ma jirta, laakiin adigu boola xoofteen iyo waxbuu iskala lahaayo saasoo ugu yaraan wuxuu rabo waa dhihi karin. marka ma naqaan haddii khayroo kala soo helayaan iyo hadday khayraba ay dhihi doonaan alla khayreyn yaa loo soo celiyay inay dhihi doonaan ma kala aqaan, laakiin kulley wax weyn oo hadda laga filaya meeshaan ma jiraan. madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ayaa iyaguna doorkooda ka ciyaaraya xulista xubinta loo arki karo inay kusoo baxdo xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. dad badan oo ku dhadhow madaxweynaha Soomaaliya ayaa aada loo hadalhayaa, kuwo kale ayaase laga yaabaa in ay kusoo baxaan xilkaasi, inkastoo go-aanadii ugu dambeeyey ee looga bartay xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aysan u noqon sida filashadu ahayd oo mararka qaar wax ay iska bedeli jireen. haddaba wixii kasoo kordhaa magacaabistaas la filayo inuu sameeyo madaxweynaha Soomaaliya saacadaha soo aadan, wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan ama radio.com ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. ururada warbaahinta iyo suxufiyiinta ayaa waxa ay quus ka taagan yihiin in ay sii shaqeeyaan sababo ay ku sheegeen cadaadis uga imaanaya dowladda dhexe. cali xasan ayaa faahfaahinaya. ururada ka shaqeeya arrimaha warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay quus ka taagan yihiin inay sii shaqeeyaan warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee ku nool dalka. xogayaha ururka warbaahinta Soomaaliyeed ee Soomaaliya maxamed cabdihaab cabdulaahi ayaa waxa uu sheegay
in wariyaasha soomaaliyeed ay halis ugu jiraan in dalka ay ka cararaan oo ay warbaahinta shaqada ee dalka wada joojiso. waxa uu intaa ku dar in haddii wariyaasha iyo warbaahinta soomaaliyeed ay waayaan cadaalad dalkana isaga tagaan oo dalka dib u laaban karo. waxauna ku baaqay in cadaalad darada haysta wax laga qabto. ma filayno maxaa yeelay garsoorayaasha iyo guddoomiyaasha maxkamadda waxa dhan oo maxkamadda ka shaqeeya madaxweynaha soo magacaabay marka ma islihiin cadaalad rasmi aad helaysaan. maanta waxay u tahay wariyaasha soomaaliyeed maalin mugdiya maxaa yeelay waxay ogaanayaan waxa maanta ku dhacay gurbiya oo cadaalad darada in wariye kasta la damacsan yahay saasna loo raadsan doonay aaminsan yihiin. marka waxaa halis inay wariyaashu dalka ka cararaan in TV idaacaduhu ay shaqada joojiyaan halis loogu jira waana wadanka wax dib u celi karo meesha hadda jooga meel ka hooseysa geey kar. marka waxaan leenahay waa ka xunnahay waxaana ku dadaali doonaa inaan sii soconno ilaa aan cadaalad ka helno haddii Ilaahay yiraahdo. shalay ayaa maxkamadda gobolka banaadir waxa ay tafatiraha warbaahinta goobjoog ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ah iyo 5 milyan oo shilin Soomaaliya iyadoo aan weli la haynin cidda eedeysay wariyaha. warkeennii subaxoodii kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho saaka oo naga inta cidda warkeennan uu sheego radio risala.com ay dib ugu heli karaan.